siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii hore aqoon-yahano duubab dhaqameed waxgal u ah bulshada Soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed aan dib loogu celin doonin habka awood qaybsiga 4.5 ama 4.5ka waxaana ay soo jeediyeen dadkaasi oo matalaya Soomaali badan in doorashada sanadka dambe ee ka dhici doonta Soomaaliya lagu saleeyo nidaamka deegaameysiga oo dadka laga soo doorto deegaanada waa kan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi siyaasiga Salaad Cali Jalle iyo duubab dhaqameed ka mid ah duubabka dhaqanka Soomaaliyeed oo aragtidooda ku cabiraya in dadka Soomaaliyeed aan marnaba dib loogu celin nidaamka awood qaybsiga 4.5 ama 4.5 isla markaana go'aankooda uu yahay in doorashada Soomaaliya ka dhici karta sanadka dambe marka la gaaro in lagu saleeyo hab deegaameysi oo dadka deegaanka ay wax ku soo doortaan ummaddu waxay diyaar u tahay inay deegaan lagu saleeyo xildhibaanada iyo siyaasadda soo socda dastuurkay ku qoran tahay in deegaano iyo xisbiyo looga gudbiyo qabiil ummadda Soomaaliyeed maanta Soomaaliya uma baahna haddii nidaamka qabaliga laga bixi waayo waxa halis loogu jira in dagaalo sokeeye lagu noqdo dagaalo sokeeye iyo ummaddan dhibaato dambe inay noqotana cid ku talin karta ama laga yeelayo ma jiro in laga gudbo aan loo naqa karin 4.5 taasina ay tahay burbur ummadda Soomaaliyeed dib loogu celaayo oo aan la aqbali karin in looga gudbo haddaan doorasho ayna dhici karin qof iyo codkiisa ay jeceshaa iyadu in loo gudbo nidaamka degmooyinka oo degaan wax lagu dhiso afartiya barkii waxay noqotay waxaan lagu noolaa karin ay noqotay waxa la warsaday gabdhihii waa qadsan yihiin waxa la warsaday dadka tirada badan oo xooga badan oo degmooyinka doogaa la warsaday waa qadsan yahay yaa wax la siiyay rag allow waxa wax la siiyay waa la arki doonaa waxaana la leeyahay laakiin goorba dadka tirada ee raaxa loo roonaado hadday leeyihiin haddaanay soo bixi doontaa haddii ilaahay yidhaah bal xagga baratay xaggana hala baro warfoon bay waa arkay ma dadka dhigay degmooyinka bayaan aadayada waxaan maleeyay xal haq maahina waa xal hadda ka hor leeyahay war haddii haqa laga tago xaggee horta xal lagu arkay xalbaba imaan kari haqa yaaba laga tagay waxaan leenahay kelimadaas kelimad sax ma aha haqa laga taga asax xal aada haq ma waxaan leenahay kelimadaas waa lagu qaldamay waxay ila tahay waxaa la soo gaaray xilligii laga dhammaanahay waqtigaas ayaa la soo gaaray waxaan raacayna dastuurka Soomaaliya u yaala oo maaragtay dowladda ku beelgaanay ayaa dalka u dhisay marka dastuurkii lagu soo dhisay ayaa raacayna marka dastuurkii ayaa la raacay cid tiraahdaa waxay ka soo horjeedaa qarannimada Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee hadalkani ka soo yeeray qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee maanta kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho waxa uu ku soo beegmayaa xilli magaalada Muqdisho ay ka furan tahay madasha wada tashiga taasi oo la isku mari la'yahay in Soomaaliya dib loogu celiyo habka awood qaybsiga 4.5 ama hab deegaameysi dadka lagu soo doorto laakiin iminka waxaa muuqanaya kala aragti duwanaansho dadka madasha shirka wada tashiga u fadhiya ay ku kala aragti duwan yihiin ereygaasi maanta ay qaateen dad badan oo ka mid ah Soomaalida oo go'aankaasi ajiibay Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okay TV Universal magaalada Muqdisho